بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله horta ilaahay baa mahad leh waxaan halkan maanta aan u soo fariistay inaan ka hadlo arrimo badan oo dhowr jeer ku soo noqday bulshada Soomaaliland oo ah shayga la yiraahdo sixir bararka haddaba maanta waxa isweydiin leh sixir bararku maanta ma kooba ma laba ma saddex ba soo wax soo jireen waa muddadii ay dhisnayd Jamhuuriyadda Soomaaliland haddaan dawladda hadalkayga aan idinku noqdo waxa weeyaan markii ugu horeysay ee uu gooristaaga Soomaaliland markii xornimada ay la soo noqotay markii madaxtinimada dalka loo dhiibay hogaankii ugu horeeyay kadib waxa dhacday inuu xilkii la wareegay Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal naxariista janna Ilaahay ka waraabiye 1993 xilliga waqtiga waxay ahayd xilli dollarku barkii lacag Soomaali baa jiri jirtay berigii hore lacagtii hore Soomaali laga isticmaali jiray kadib waxa dhacday in 94 wixii ka dambeysay la soo daabacay lacag qiimaha sarifku waqtigiina Cigaal waxa uu marayay halka dollar waxa uu marayay 700 shilin halka uu maanta ka marayo 700 shilin difference-ka u dhaxeeya waa 10 libilaab ma aha oo kaliya step by step sidii soo kordhayay waqtiyadii kala duwanaa ee uu soo kordhayay muddadii u dhaxaysay ina Cigaal daahiriyaaleed sixir badan baa dhacay waqtigiina Cigaal qabsaday waqtiga lafteeda kabaniyo dhanba ayaa ku kacay sixir bararka iyo qiimo dhaca ku yimid lacagta shilinka Soomaaliland isagoo marxalado kala duwan soo maray hadalkayga ayaan ku sii fogaanay 1900 waqtigii daahiriyaale talada dalka wareejiyay ee uu kursiga fariistay madaxweynaha dalka maanta haya madaxweyne Axmed Maxamed Siiraayo waxa uu dollarku ahaa halka dollar 6200 uu ahaa sababta iyo ujeedada oo ah waxa jirtay waqtigii labada madaxweyne ka horeeyay ay mushaarahaan shaqaalaha dawladda ay u siin jireen lacagta noorka 5 shilin 10 shilin 50 shilin 20 shilin 100 shilin iyadoo oo uu mas'uuliyadeedana lagu wareejiyay madaxweynaha maanta talada haya balse ay gabtay in laga shaqaysiyo lacagtii waqtiga laga tagay ee lagu wareejiyay in dalka ka shaqeeyo waqti hadaan ku soo qaato waqtigii 1993 markii madaxweyne Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal qabsaday talada dalka waxaan ahaa sariflayaashii ugu horeeyay ee dalka ka hirgeliyay 1990kii sariflayaasha ka bilaabay baan ahaa Jamhuuriyadda Soomaaliland markii dalka lagu soo noqday 1993 markii uu madaxtinimada si caadi ugu wareegay madaxweyne Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal Ilaahay naxariista jannaha ka waraabiye waxaan ahaa qofkii ugu horeysay ee banka Jamhuuriyadda Soomaaliland ku aaminay lacag dhan 1.2 billion hal bilyan iyo 200 milyan oo shilin oo lacagtii waqtiga ahayd lacagtii Soomaaliya ahayd aan ku wareejiyay banka Soomaaliland waqtigaana waxa jirtay hubka dhigis oo runtii dadka bulshada Soomaaliland majority-goodu ma aaminsaneen dawladnimada iyo systemka dawladnimada ma aaminsaneen balse aniga waxay u kalifayay ka muwaadin ahaan inaan ummadda tuso in banka Soomaaliland la aamini karo uu yahay dawlad atusay waxa horta nasiib daraa maanta in xukuumadda Soomaaliland ay sabab u noqoto hoos u dhaca qiimaha lacagta dalka Soomaaliland horta lacag waxa qiimo yeelataa marka bulshadeeda iyo dadkeeda iyo dawladeedu ay qiimo u yeelaan ayay lacagtu qiimo yeelataa ama noorkeeda 5 shilin 10 shilin ginida 50 shilin 100 shilin ay shaqeynayso ay lacagtu qiimo yeelataa taasina waxa mas'uuliyadeeda leh in ay hawada ka baxdo oo ay dabar go'do xukuumadda maanta talada haysa 2012kii 13kii intii ka dambeysay ilaa 16ka waxa jirtay dhowr jeer in lacag la soo daabacay lacagta noorka loo yaqaan 1 shilin iyo 5 shilin la soo daabacay taasina caadkeeda la garanayn taasina ay sabab u tahay in ay lacagta Soomaaliland qiimo dhacdo lacag kasta oo la soo daabacaa waxay qiimo dhac ku sameeysaa oo sarifka kicisaa lacagtii hore u jirtay mana wanaagsana
in la qiimo tiro lacagta dalka waxa qurux badan la aamino bangiyada Somaliland halka wasiirada ama guurtida ama agaasimeyaasha ama madaxda kale ee dalku marka ay mushaarkooda ku qaataan lacag Somaliland halka isla markaaba ku bedelanayaan lacagta dollarka la yiraahdo waa inay aaminaan lacagta Somaliland oo qiimo u yeelaan oo ay guryahooda dhigtaan oo ay kaydsadaan bangiyada dhigtaan waxa jirta wasaaradaha qaar waxa arkaysaa banka private-ka ku leh account ku leh halka uu ka shaqeynayo bankii u qaabilsanaa banka dhexe lacagta hard currency loo yaqaan lacagta adag oo ay ku kaydsan karaan taasina kale ruuxantii dadku waxa qurux badan in dawladdu ay aaminto lacagteeda لازم كجار واحد شفت إنه حرامة بدن وصوم مرسل بركة طلقة إلا بدأ أصرف له هذا وقت جيب محمد حاج إبراهيم عقال وهيس يعني حكومي ثلاثة طلقة محا أظن ملايين إنه سعر بركة كذي هاي فريمة وسوي شيء نسا حكومة هذا طلعة يسوي مسؤولين تبقى كده. أرتا واحد وسوي شيء لها أرتا واحد حكومة واحد كستا أو دعية ذاك مسؤولة ما نقرح بدنا إن شركتها موادين تا ama bulshada kale ee muwaadiniinta inay ku eedeyso dambi ayadu leedahay ay dusha ka saarto horta adeega saadiye dahab la yiraahdo ya waxa uu sahlay bulshada deyrta waxa uu sahlay inay nolosha maalmeedkooda iyo duruufahooda ay dadka wax ku weydiisan karaan noloshooda baahida gudaha iyo dalba anu shakhsiyan taasaan aaminsanay mana qurux badna in shirkada lagu eedeeyo wax mas'uuliyadda ay ka tahay dawladdu sicir bararka iyo qiimo u dhaca lacagta noodka la yiraahdo Somaliland shilinta iyadoo mas'uulka ah haddana cid ku eedeynaysa marka waxa leeyahay inta shirkad ama muwaadin dalkiisa iyo maal gashaday waxa leeyahay halaga daayo eeda shirkadu kale faa'iido u soo kordhiyeen bulshada dalka oo horumarka tiknoolajiyada casriga waxyaabo badan bay u qabteen marka la eego heerka aynu marayna maanta telefoonada kale hadii aad dib lagu noqdo waqtiyadii hore telefoonada Djibouti ama Ethiopia loo tagi jiray laga soo dirsado meedisku qaali buu ahaa imika waxa loo fidiyeeyay inay nolosheeni easy qofkii xanuunsanay isagoo berberis ka jooga ama burcas ka jooga adeega saadiye iyo dahab loogu diri karo dawadu u baahnaa halkii inta xawaalad loogu dhigay ama habeenimo ay noqon lahayd waqti ay qaadan lahayd qofkii isagoo dawadi u baahan inuu ku daweeyo dadka horta faa'iido ka tahay marka la eego adeega saad iyo iidaha faa'iido ayuu yahay umada marka waxaan leeyahay madaxweyne anu horta ma yihiin run ahaantii qof u shaqeeya shirkadaha saad iyo iidaha iyo dawladda toona anu waxaan shakhsi madax banaan una damqanaya bulshada jamhuuriyadda Somaliland wassalaamu alaykum warahmatullah waxay isweydiintu ay tahay oo dilada hadalkaygu tahay maalintii dhaweytay madaxweynuhu amarka ka soo saaray arintan uu ku eedeynayay labada shirkadood ee dahab iyo saad qiimaha dollarka wuxuu ahaa 8300 oo shilin halka uu maanta marayo 7000 oo shilin iyadoo aan wali isticmaalkii adeega saad iyo dahab wali sidiisii oo aan waxba laga taabay waxna aan laga joogin baadaba isweydiinta sababta waxa u taala shacabka iyo madaxweynaha arinta